بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان dadweynaha reer Galmudug iyo dhamaan ummadda Soomaaliyeed maantay waxaan shirkan jaraaid u qabtay sida aad ka warhaysaan muddadii la soo dhaafaba waxaa laga warsugayay in Galmudug ay ka dhacdo doorashadii muddo xileedka labaad ee hadaha dastuuriga magaaladeeda caasimadda ay Dhuusamareeb magaalada Dhuusamareeb iyo Galmudug ayadoo ay sugayaan dadka Soomaaliyeed iyo dadka reer Galmudug dhamaan in ay ka qabsoonto xulista xildhibaanada iyo doorashada hay'adaha dastuuriga dhamaan waxaa soo muuqanaysa maalmaha la soo dhaafay in khilaaf soo ifbaxay oo u dhaxeeyo dawladda federaalka iyo maamulka ahlusunna wal jamaa waxaad ka warhaysaan in horay heshiis lagu wada galay magaalada Dhuusamareeb dalka Jabuuti lagu soo galay ay ku galeen madaxweynaha dawlad goboleedka Galmudug muddo xileedkiisa wali uusan wareejin xilka madaxweynaha xaaf iyo maamulka ahlusunna wal jamaa kaas oo lagu dhameystiray maamulkii Galmudug oo ku shaqeynaya Dhuusamareeb muddadii ay labada sano ahayd ee heshiiska ay ahaayeen maamulka ahlusunna iyo maamulka Galmudug oo dhameystiran waxaa dawladdu ay cadaadis joogto ah la daba taagneed maamulka Galmudug waa ka warhaysaan laba sano cunaqabatayna lagu hayay arrintaas waxay markii dambe ku dhameystirantay in madaxweyne xaaf iyo maamulka ahlusunna ay dawladdu soo kala dhex dhigtay khilaaf kaas oo keenay in ay oo burburo heshiiskaasi meeshaas wixii ka dambeeyay dawladdu waxay heshiisyo la gashay sida naloo sheegay maamulka ahlusunna in la dhiso nidaamka soo socda ayadoo lagu heshiiyey in la wada dhiso guddiga farsamada iyo kadibna xildhibaanada waxaa hadda muuqanaysa in dawladda federaalka oo ay tilaabo gooniya ku dhisatay guddi farsamo maamulka ahlusunnana uu dhisay guddi farsamo waxaa muuqanaysa in la soo dhaweeyay kii dawladda la soo dhaweeyay kii ahlusunna maamulkeedii shalay ay isdoorteen kuwii dawladda maantay sida aan ka warhayno ay baarlamaanka Galmudug fadhiyay ay ansixiyeen kuwii maamulka ahlusunna waxaan sidoo kale ka warhaynaa in ciidamo lagu daabulay magaalada Dhuusamareeb saakay waxaa la geeyay 100 askari oo ka tirsan ciidamada gorgor shalay waxaa la geeyay 100 ciidamada jooga ee ka kala tirsan gorgor iyo danab waxay dhan yihiin 500 ee jooga magaalada Dhuusamareeb waxaad moodaa in ciidamadii dhinaca kale ee maamulka ahlusunna ayagana ay ka shaqeynayaan sida ciidamo u guri lahaayeen waxaad moodaa marka in magaaladu ay u muuqato magaalo diyaar garow oo ku jiro xaaladaas markay soo cusboonaatay yaan waxaan go'aan ku gaarnay inaan shirkan jaraaid qabanno waxaan marka rabnaa in aan xaaladdu hadda ay maadaama ay sidaas tahay aan haddaba haddii aan la huraynin in xaaladda aan baaq u soo jeedino dhammaan dhinacyada reer Galmudug kow dawladda federaalka iyo maamulka ahlusunna waxaan ugu baaqaynaa inay joojiyaan dhammaan howlaha socda oo ay ka mid yihiin dhismaha guddiyada xaraynta odayaasha dhaqanka daabulidda ciidamada gaar ahaan kuwa xamar laga qaadayo waxaan rabnaa inaan xasuusino dawladda federaalka ah Galmudug ayadoo intaan ka sii tabar yar baa la dhisay 2015 wax ciidan oo xamar laga qaadana lama qaadin ciidan ku filan Galmudug waa joogaan oo ammaankeeda ilaaliya magaalada Dhuusamareeb iyo cadaado iyo gaalkacyo iyo cabidwaaq iyo dhammaan reer Galmudug waxaan rabnaa dawladda markaan ugu baaqaynaa in la joojiyo number 2 in la isugu yimaado gogol ay ku wada hadlaan reer Galmudug ay u dhan yihiin si loo dhiso maamul ciidan oo loo dhan yahay iyo maamul loo dhameystiran yahay dadweynaha iyo waxgaradka Galmudug iyo xildhibaanada federaalka waxaan ugu baaqaynaa inay u istaagaan sidii loo xalin lahaa khilaafka soo kala dhaxgalay federaalka iyo maamulka ahlusunna ciidamada qalabka sida baaq gooniyahan rabnaa inaan u joojino oo ah in ay colaadda banaanka ka istaagaan arrimaha siyaasadana faraha kala baxaan sida qodobka dastuuriga oo qabo faqrada 127 qodobka 127 ee dastuurka kumeel gaarka ah kaasoo sheegaya ciidanku inuu soo gashan arrimaha siyaasadda waxaan ciidamada sidoo kale uga digaynaa in ay colaadda ka fogaadaan colaadda loogu talagalay in ay iskula dhacaan Dhuusamareeb dawladda iyo ahlusunna ma noqon doonto xisaab la'aan saraakiishuna ma laga yeeli doono hadhow amar dawladeed la siiyay cid amar bixin karta in lagu xadgudbo ama qof la dilo marnaba laga yeelaya ma jirto si gaar ah marka ciidamada waxaan ula dardaarmaynaa
in aysan ku degdegin arrimaha hurinta ee colaadaha laga shaqaynayo dowladaha amisom ee jooga gaar ahaan ciidamada Djibouti iyo ciidamada kale ayagana waxaan ugu baaqaynaa in deegaankaasu deegaan nabdoon oo laga taageersan yahay weeye cid ka soo horjeeda ayagana meeshaas ma joogto marka inay arrimo siyaasadeed la isku hayaa ay faraha ka qaadaan waxaan rabnaa inaan ugu baaqno dowladda federaalka mar kale iyo ahlu sunna inaan diyaar u nahay haddaanu nahay murashaxiinta iyo dadka reer Galmudug dhammaan in arrintaasi ay noqoto arrin lagu xaliyo wada hadal is afgarad marnaba Galmudug meeshii xoog la isku la maquulin lahaa ama tabar la isku la maquulin lahaa ma aha haddana maaragtay in maaragtay loo diyaar garoobo in aan simida gunaanadkii iyo guntina waxaan rabaa inaan idiin sheego Galmudug midahan danaynaynaa oo ay u taaganahay anigu si taas loo gaarana waa inaan maquunis iyo awoodi marnaba soo gelin ilaahay wixii khayrka ku jira hana waafajiyo aad iyo aad baa u mahadsantiin